كلنا ونحسن داوديال halkani waa janalka kulanka wararka falanqaynteena fiidnimo iyo xogteena qarsoon oo alaaba xiliyadan oo kala aad ka daawataan janalkeena kulanka wararka waxaanu caaw ku dul istaagi doonaa afayeenadii ugu dambeeyay isku horimaad ka dhacay xirada lama galay magaalada Beledweyne oo ay wada degan yihiin madaxda ugu sareysay Hirshabeelle iyo murashaxiinta ugu tunka weyn kuraasta beelaha xawaale iyo Gaaljecel ee kuraastooda ay harsan tahay in lagu doorto magaalada Beledweyne faahfaahinadii ugu dambeeyay mas'uuliyiin sarsare oo dhaawacyo ay ka soo gaareen dagaalkaasi ayaan idin soo gudbin doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan mas'uuliyadda dagaalkii ka dhacay xerada lama galay ee ay ku wada sugan yihiin madaxweyne ku-xigeenka saraakiisha ugu sareysa ciidamada murashaxiin waaweyn oo ay ku jiraan Sambalool Shagoodax Barre iyo wasiir Cabdirasaaq waxyaabaha keenay in dagaalku halkaasi ka dhaco cid mas'uuliyadda qaadaysa iyo madaxda ku dhaawacantay ayaad maqli doontaan inta ka horeysa waxaan ka dalbanaynaa daawade haddii aad ku cusub tahay channelka kulanka wararka fadlan subscribe sar haddii aad ka heshid wararka iyo warbixinada halkaani aan soo gelinaa like garay sidoo kale aragtidaada noogu reeb qaybta hoose ee commentiga mahadsanid faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaal ka dhacay xarunta maamulka gobolka Hiiraan ee magaalada Beledweyne gaar ahaan xerada lama galay magaaladaasi israasaaseen muddo saacad ku dhow socotay ayaa ka dhacday albaabka hore ee xarunta maamulka ku dhaxmartay ciidamada ilaalada madaxda Hirshabeelle ee halkaasi degan iyo sidoo kale maleeshiyo hubeysan oo ilaalo u ah qaar ka mid ah murashaxiinta kuraasta golaha shacabka ee gobolka Hiiraan arrintan ayaa salka ku haysa xiisad ka taagan doorashada kuraasta ku harsan magaalada Beledweyne oo la isku khilaafsan yahay sida loo maareynayo waxaana dhaqdhaqaaq ciidan bilaabay maleeshiyad ku labisan dareyska ciidanka militariga oo ka soo horjeeda in shakhsi gaar ah loo xiro kursiga tirsigiisu uu yahay Hob 10 oo uu hadda ku fadhiyo xildhibaan Cabdirasaaq Maxamed Jinde isku horimaadka ayaa la sheegay inay ku dhinteen laba qof oo midkood shacab yahay waxaana sidoo kale warar hoose ay sheegayeen inuu ku dhaawacmay xubin sare oo ka tirsan maamulka Hirshabeelle oo ka tirsan madaxtooyada maamulkaasi wararka qaar ayaa sheegaya in mid ka mid ah murashaxiinta uu dhaawac soo gaaray iyada oo la isla dhaxmarayo midka uu yahay murashaxiinta xildhibaanada ah ee ugu magacaweyn gobolka Hiiraan ee ka soo jeeda beesha xawaale kuna sugan magaalada Beledweyne xaaladda magaalada Beledweyne ayaa kacsan iyadoo doorashada kuraasta beelaha xawaale iyo Gaaljecel laga cabsi qabo inay dhaliso isku horimaadyo kale iyo dagaal ka dhaca gudaha magaalada xarunta lama galay oo ay ku urursan yihiin madaxda Hirshabeelle maamulka gobolka iyo murashaxiinta waxa ka socda shir looga hadlayo xaaladda amniga magaalada Beledweyne iyo dejinta xiisadda taagan dagaalkan ayaa salka ku haya kadib markii go'aankiisa uu cadeeyay madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe kaas oo sheegay in doorashada kuraasta beelaha xawaale iyo Gaaljecel ay u taageereen murashaxiin culus ay noqdaan kuwa furan hase ahaatee ku-xigeenkiisa Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa arintaasi ka hor yimid waana tan keentay in murashaxiinta qaar ay hub isticmaalaan madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe oo mar kale kulan la qaatay inta badan murashaxiinta oo mar kale maanta kulan la qaatay inta badan musharaxiinta u taagan 12 kursi ee ku harsan magaalada Beledweyne ayaa u cadeeyay mowqifkiisa kulanka oo ka dhacay madaxtooyada Hirshabeelle ee magaalada Beledweyne ayaa waxa waqti badan wada qaatay madaxweyne Guudlaawe iyo murashaxiinta 12 kursi ee beelaha xawaale iyo Gaaljecel waxaana Cali Guudlaawe mar kale uu cadeeyay inuusan talagalkiisu ahayn in loo xiro shakhsiyaad gaar ah kulanka ayaa waxa sidoo kale goobjoog ka ahaa madaxweyne ku-xigeenka Yuusuf Axmed Hagar Dabageed kaas oo diidan in kuraasta la furo waxayna warar la helayo ay sheegayeen inuu wali diidan yahay go'aanka uu ku adkaystay Cali Guudlaawe Dabageed ayaa ku xiran filla Soomaaliya oo doonaysa in qaar ka mid ah siyaasiyiinta ugu caansan gobolka Hiiraan aanay dib ugu soo laaban golaha shacabka madaxweynaha Hirshabeelle ayaa musharaxiinta ka codsaday inay xaaladda dejiyaan isla markaana ay ciidamada ammaanka kala shaqeeyaan sugidda amniga Beledweyne inta ay dhacayso doorashada musharaxiinta ayaa aqbalay codsiga madaxweynaha Hirshabeelle waxaana sidoo kale uga mahad celiyeen inuu ku adkaystay go'aankiisa xilli ku-xigeenkiisa uu rabo in la boobo kuraasta harsan inta uu kulanka socday ayaa waxa isla saaseen dhexmartay qaar ka tirsan ilaalada musharaxiinta iyo ciidamada Hirshabeelle waxaana ka dhashay qasaare gaarsiisan dhimasho iyo dhaawac iyadoo la sheegayo in mid ka mid ah murashaxiinta uu dhaawac daran soo gaaray waxa sidoo kale la sheegaya inuu jiro mas'uul sare oo ka tirsan Hirshabeelle oo isna rasaastaasi ku dhaawacmay xaaladda magaalada Beledweyne ayaa labadii maalin ee la soo dhaafay ahayd mid kacsan waxaana soo buuxlaafiyay ciidamo fara badan oo u abaabulan habbeeleed kuwaas oo diidan in kuraasta loo xiro dad gaar ah
guud ahaan falanqaynteennii fiidnimo iyo xogta qarsoon ee xiliyadan oo kale aad ka daawataan janalka kulanka wararka caawa naga inta daawada haddii aad tahay mid nagu cusub fadlan janalkeenan subscribe saar oo nagu soo biir sidoo kale share garey si ay u gaaraan saaxiibo badan oo sidaadoo kale ah oo nagu soo biira haddii wararkeeni warbixinadeena aad ka heshana la garey sidoo kale wixii aragti ah noogu reeb qaybta hoose ee commentiga mahadsanid